ismaqaliya daawasho wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in dadka Muqdisho ay banaan bixi karaan inay culusna u dilay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyo weyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo midowga musharaxiinta oo shir jiraa'id oo degdeg ah ku qabtay galabta magaalada Muqdisho oo shaaca ka qaaday in dibadbax kale ay abaabulayaan oo ka sii mugweenkii hore ee laga baajiyay ee rasaas lagu furay waxaana ay wacad ku mareen in markan talaabo adag ay qaadi doonaan sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada beeleed u abaabulan oo lagu ururinayo magaalada Muqdisho iyo dagaalkii ugu cuslaa oo laga cabsi qabay in magaalada Muqdisho ku dhexmaro mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan ayna ku bilownay midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale ku dhawaaqay banaanbax nabadeed oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana ay ku muujin doonaan sida ay markaasi ugu xun yihiin wixii dhacay waxaana ay ku muujin doonaan sida ay u doonayaan inay u dhacdo doorasho xalaal oo la isku raacsan yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mar kale ay qabanayaan banaanbax nabadeed oo dastuurku u ogol yahay madaxweynihii hore Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in dibadbaxyada ay yihiin xuquuq dastuuri ah sidoo kalena aysan ahayn wax dawladnimada dhaawacaya waana hab uu muwaadinka ku cabiri karo dareenkiisa dhinaca kale Sheekh Shariif waxa uu sihayaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku eedeeyay inuu ciidamada qaranka u adeegsaday dana qaas ah isagoo ku weeraray musharaxiinta sidoo kalena waxa uu saraakiisha ciidamada u sheegay inay baalmareen dhismahooda waa nasiib dareen ciidamadii aan ku naaloonaynay inay dibadada u aasaan qarannimada maanta nagula weeraro ciidamada waxa ay ku dhisan yihiin sharci iyo dawladnimo haddii ay ka gudbaan ciidan ma ahan ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore Soomaaliya midowga musharaxiinta oo wada jira waxay adkeeyeen inay mar kale abaabulayaan banaanbax nabadeed oo ay rabaan inay dareenkooda ku cabiraan dadka reer Muqdisho ayaana weli ka walaacsan xaaladda guud ee dalka xogayaha guud ee qaramada midoobana waxa ay markaasi uu shaaca ka qaaday ama uu taageeray inay shacabka magaalada Muqdisho ay dibad bixi karaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa taageero u muujiyay shacabka Muqdisho ay markaasi sameyn kareen dibadbax nabadeed kaas ay ku doonayaan in markaasi isbedel uu ku dhaco ama doorasho markaasi la isla ogol yahay ay ku dhacdo shirkayna jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay wixii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho iyo habeen hore iyo aragtida musharaxiinta sida loo gaari karo xal ku aadan hanaanka doorashooyinka marka hore waxaan rabnaa inaan mahad celino shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sidii garab u istaageen fikirka wanaagsan ee ah in la helo doorasho xor oo xalaal ah si dawladnimada hanaqaadka ay si hanaqaado looga mahad celiyo taageeradooda looga mahad celiyo soo baxa ama isku daydiga taas waa qodobka koowaad qodobka labaad inaan u tacsiyeyno cid kasta oo dib ka soo gaaray dulumkii aan lahayn marmarsinyada ee la gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed ee ama damiirkooda la gaarsiiyay ama maskaxdooda la gaarsiiyay ama jirkooda la gaarsiiyay xorriyadooda la qaaday inaan uga tacsiyeyno aad iyo aad ugu xunnahay wax shacabka Soomaaliyeed u qalba ma aha waxay sugayeen ma aha Soomaaliya waxay xor tahay 60 sano in ka badan waxay soo burbursanad waqti dheer maanta waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay xorriyadooda dareemaan meel ay joogaanba laakiin nasiib darro waxaad aragteena dhacay qodobka mahad celinta markaan ka soo gudbo madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah dastuuri ah caafimaad ah u wanaagsan dalka qofkii doona madax ahaado isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabada وانا تي مرشحين أكو باقين أي كشقين عين
loo soo weeraray naftooda halis loo geliyey dadkoodii la dilay la kala ceyriyey mabda'aas waxaan u aragnaa mabda wanaagsan dhaxalgal ah dawladnimada u fiican aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay wuxuuna xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn mid waa hanaanka dawladnimada midna waa xurriyadda qofka oo aan labaduba laga tanaasuli karin arinta saddexaad waxa waaye mas'uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dawladda ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan argagixiyaan joojiyaan xurriyadda qaadaan madaxda ay amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday laba shay ee halkaas isku darsantay madaxdii oo xilkeedu dhammaaday iyo falka la samaynayo aan sharci ahayn labadaas waxay ku yihiin dawladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn waxaan wada ognahay waqtiga iyo dadaalka naga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meeshii laga keenay maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhalinyarada ahayn oo aan ku naaloonaynay inay qarannimada dhidibada u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan doodna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo weeraraan waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dawladnimo hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha halkaas in la fahmaa la rabaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha wuxuu sameeyay waa fal dambiyeed qofka sameeyay iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaal ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la horkeeni doona shalay markaan dhisaynay si hagar la'aan ah dadnimo ah ayaan u dhisnay waa u hagar baxnay maanta in loo adeegsado aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay waxay jabiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaaliyeed inay ka hanjabaan ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta aqligiina ku soo laabta sharciga annagu waxa aan dhisayno iyo waxaan u taaganahay waa dawladnimo haddaad u haysatiin inaan dana gaar ah ka shaqaynayno dana gaar ah kama shaqaynayno danahayna waa ka soo tagnay waxaan u taaganahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho oo galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay yaa ku guuleysanaya macna gaar ah ma samaynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arintaas diyaar u manhi inaan ka kaftano waxaan rabnaa inaan ku celino banaanbaxeen waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeena dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in shacabka Muqdisho ay dibadbixi karaan kadib markii ciidamada dawladda ay weerareen dibadbaxyaal dalbanayay in madaxweyne Farmaajo uu ka degay xilka Antonio Guterres ayaa qoraal uu ka soo saaray rabshadaha ku muujiyay inuu aad uga walaacsan yahay wixii dhacay waxaana uu dhinacyada ugu baaqay inay muujiyaan isxakameyn iyo waliba sidii ay markaasi xaaladda ay u dejin lahaayeen xogayaha guud ayaa sidoo kale ugu baaqay hogaamiyaasha dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay si degdeg ah isugu yimaadaan si ay markaasi u soo gabagabeeyaan heshiis doorasho lagu qabto waafaqsan heshiiskii 17 September xogayaha guud ayaa waxa uu sidoo kale ku baaqay in si buuxda loo xushmeeyo xuquuqda ay dadka u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan iyo xorriyadda hadalka ayuu yiri Antonio Guterres oo taageero u muujiyay dibadbaxyadaasi waxa uu sidoo kale ku celiyay taageerada buuxda ee qaramada midoobay u hayso wadada ay shacabka iyo dawladda Soomaaliya ku gaarayaan nabad xasilooni iyo barwaaqo hadalka Antonio Guterres ayaa imaanaya iyadoo xaaladda Soomaaliya ay ka sii darayso isla markaana ay waqtiga ku dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo balse uu diidan yahay in doorasho markaasi dalka uu aado ugu dambeyntiina magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxa magaalada ka socda abaabul ciidan beeleed kadib markii magaalada ay ka dhaceen isku dhacyo ka dhashay weerar ay ciidamada dawladda ay ku qaadeen musharaxiinta mucaaradka degmooyin ku yaala dhinaca koonfur iyo waqooyi magaalada ayaa laga abaabulaya ciidankan oo la sheegay in lagu ilaalin doono laguna xoojin doono ammaanka musharaxiinta oo qalqal galay saacadihii la soo dhaafay ciidamada is abaabulaya ayaa markaasi
ciidamada is abaabulaya ayaa u badan ciidamo beeleed oo aan ka tirsaneyn ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxaana sababta loogu sheegay in lagu yareyn doono culeys amni ay wajahayaan hogaamiyaasha mucaaradka ee xilka madaxweynaha waqooyiga iyo koonfurta ayay kala joogaan ciidankan waana ciidanka badbaadada shacabka iyo musharaxiinta wixii hadda ka dambeeya wado aan ahayn dagaal nooma muuqato ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka dowladda ee ku biiray maleeshiyaadka laga abaabulaya magaalada Muqdisho talaabada ay qaaday dowladda ay ku beegsatay mucaaradka iyo shacabka dibadbaxaya ayaa la rumaysan yahay inay kicisay dibadbaxdan oo markaa horeba arintan dhexdhexaad ka ah waxaana laga cabsi qabaa in xaaladda ay ka sii darto magaalada Muqdisho ayaa hadda haawanaysa waxaana cidla ah wadooyinka magaalada iyo xaafadaha qaar ciidanka dowladda ayaa wali waxa ay markaasi u xiran yihiin wadooyinka muhiimka lamana oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino waana mahadsantiin